صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 سنذيو فرض كأوغا فقرا سكذا سيا سنذيو فرض كأوغا فقرا سكذا سيا. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaal waxaynu ku sii jirnaa gabagabadii bishii ramadaan ee sanadka 1440 hijriga. waxaynu xusuusinaynaa in isu dardaarmaynaa waa dabagoosi khayrka in la dabagoosto oo aan dayacaadi ka imanin xaggeena. maalmihii naaraha ilaahay uu dadka ka xoreynayay ayaynu joognaa, hadday tahay maalin walba, haddii ay tahay gabagabada bisha, haddii ay tahay laylatul qadri, haddii ay tahay ciidda. way dhacdaa dadka qaarkood inay dib u yara noqdaan oo siday u dadaalayeen tobankii hore aanay u dadaalin, tobanka dambaanu laylatul qadri ku jiraa. marka waxyaabaha inoo yaalla waxaa ka mid a kow, camalku sidii aynu ku bilowna inuu ka sii wanaagsanaado. habeenka laylatul qadriga oo habeenana soo socda loogu rajo badaya caawa ka mid tahay inaynu aada u dadaalo. qur-aanka akhrintiisii khatamaadkii iyo dhammaystirkii aynu dhammaystiraynay inaynu ku dhaqsanno. dadkii soomanaa aynu afurinaynay inaynu usii kordhinno wixii aynu siinaynay. ilaa waqtigu waa qaali. qofka hal qof afuriya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam, isagoo soomkiisii oo kale helay buu ka dhigan yahay ajriga. waxyaabaha inoo yaalla waxaa ka mid a inaynu zakaatu fidrigii aynaan ilaawin. waa la bixin karaa waqtuljawaaskiisu waxa weeye 2-3 cishee soo socda in la bixiyo, inkastoo ay sii fadli badan tahay habeenka ciidda iyo subaxa ciidda. waxaynu aada ugu dadaali doonaa insha allah inaynu ka farxinno dadka inagu xeeran, hadday yihiin jaarka, hadday yihiin ubadkiiyo oryaha, iyo hadday yihiin ehelkiiyo asxaabta. qofku wixii uu heli karaya inuu bixiyo. qofku marka la leeyahay waxa bixiyo, dadka qaarkood baa waxay u fahamsan yihiin inuu yahay qofka wax buuran haysto. qof walo waxyaba waa laga doonayaa wixiisa inuu wax ka bixiyo. haddaad isu niyooto adcafu nnaas, dadka ka ugu daciifsana wax qaadanaya un inaad noqoto, waaba laga yaabaa inaan waxba kuu kordhin oo lagu aqbalo. fahamkaa may lahayn asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam. nebigu waxa uu ku rabeeyay asxaabta, faashkiina qaato xaabo soo gurta oo qaybna masruuf u cuna, qaybna sadaqeeya. saasuu ku rabeeyey. sidaa daraaddeed ninkii asxaabta ka mid ahaa ee isagoo qaawan masjidka iska dhex taagay ee dharka loo ururiyey intii la siiyey buu haddaba kala badhiga qabta aan bixiye. marka waa dareenkaasi wuu iska jiraa. dad badan inay waxay qaataan mooyaane in miskiin isu niyooda aan waxba bixinayn. waxaa lala hadlayaa muslimka oo dhan. intaad haysaabaad kala jebinaysa. taasaa miftaax u ah waxa aad doonayso. waxaynu markaa kelmad kooban ka odhan doonaa insha allahu si aynu u dhiiqno oo sadaqadana aynu u dhadhamino wanaaggeeda. waxa ay leedahay sadaqadu raadka ay leedahay, hadday tahay faralka oo sakadii xoolaha ah iyo sakaat fidriga labaduba inoo yaalla. qofkii aan dhammaystirin faralka sakada uu dhammaystirayaa wixii ku hadhay. sakaat fidrigiina waa u dadaalaynaa inaynaan ilaawin. raadka ay sadaqadu ku leedahay qofka bixinaya iyo ka qaadanaya iyo ummadaba waa raad wanaagsan oo aada u qiimo badan. waxaa ka mid a kuwan soo socda: الصدقة تحرير لآخذها من الفقر. الصدقة تطهير من الشح للمعطي.
qofka bixinaya waxay ka nadiifinaysaa ilaahay uu kaga nadiifiyaa waa cudurka la yidhaahdo bakhaylnimada laxajecla xumada adayga ayaa ilaahay kaga nadiifiyaa subxaanahu wa tacaala qofka bani aadamkana wuu iskaga abuuran yahay dabeecadaha iskaga abuuran buu ka mid yahay laxajeclada iyo adayga maalka uu ku adag yahay wa innahu lixubbi alkhayri la shadiid wa uxdirat alanfusu shuh bakhaylnimaa lagu soo tubay buu ilaahay oo lagu ururiyey nafti wa kaana alinsaanu qatuuran adayg weeye insaanki waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun laxajecla xumada naftu ay leedahay qofka laga badbaadiyey kuwaasi way liibaaneen buu ilaahay cudurkaa waxa ka fujiya oo ka daweeya oo ka dabciya sadaqada rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu lahaa waxa idiin soo tukubay cudurkii ummadihii hore halaagay oo ashux waa ummadaha hore bakhaylnima halaagtay iska ilaaliya buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam marka geesinimada iyo waxa wada socda deeqsinimada qofku hadduu fulayo waa bakhiil hadduu bakhiil yahayna waa fulay sadaqadu raadka wanaagsan ay ku leedahay qofka waxa ka mid ah bixinaya waa tadriibun cala alinfaaqi walbadl waxay u carbinaysaa inuu wax bixiyo hadduu faralka bixiyo laga yaabaa sunnahana inuu ku daro hadduu faralka ku adayga sunnana hadalkeeda daa macnaha haysashadana waa la bartaa bixintana waa la bartaa qofku waxaa laga yaabaa siduu uga baqayay markuu maanta in yar dhiibo berrina inuu idhaa tii hore waxba kuma yeelinba waxaan wanaag ahaynba kama soo kordhin si aad uga baqaysayba maaha dabeetana uu yaro biiriyo sidaa daraaddeed bay odhan jireen bakhaylka waa loo bilaabaa hadduu qofku bakhayl iyo aada siiso oo dadka maxaa kaa reebay buu odhanaya marka badligay baraysa iyo bixinta waa tadriib sidaa daraaddeed baa waxay ka mid tahay akhlaaqiyaadka wanaagsan ee qur-aanku ummadda uu ku ammaanay aladiina yunfiquuna amwaalahum bileyli waannahaari siran wacalaaniya الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وأخلاق ذي وناكسنيد بإلها وترنا يا وحبحنت كدري أخلاق ذي في عناية المؤمنين تلهاين وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدقوا وتخلق بأخلاق الله فإذا إن كذا وحكم إذا يرهد كوناكسني كجت سقفك بحناية أخلاق ذي لهي بقادنا يا سبحانه وتعالى ilaahay wuxuu bixiyaa xamaqaad wixii ka soo hadho dhan uu ka maarmay marka adiguna wixii aad haysatay markaad bixiso waxaad isu taagtay inaad ka kaaftoonto isla markaana akhlaaqdii wanaagsaneyd ee nabigu in amre ilaahay laga qaadanay baynu ka qaadanay rasuulku wuxuu yiri takhalluqu bi akhlaaqillah ilaahay akhlaaqdiisa wanaagsan qaata marka ilaahay wuxuu bixiyaa adoomuna intooda badan wuxuu bay qaataa marka kolkaad bixiso akhlaaqdii fiicneed baad qaadatay oo istighnaa can shay لا بالشيء شيء إنك تكون كافتون تكره هذه الميزة إنك كافتون أي أخلاق ذي لها راد كونك سنة الصدقات كل هذا قفك بحنا يا حكم إذا شكر لنعمة الله إلهي النعمة دي سيب أدونك كم هالدقية وأدونك ونك سنة حقوق نحسيها حق يحرفت أقون إن الله جو سنين أدونك امتحان لو سي تد كم بدنا هريرة شوقة قد تنسقون باللمدي in badan baa ka aqoon badan oo ka dadaal badan laakiin waa garasho leh waanu ka imtixaan badan yahay kadibna ilaahay buu nicmada ugu mahadnaqaya markuu nicmada ku mahadnaqana way beeri oo way badan la in shakartum la aziidannakum ballankaas ilaahay qaaday intuu dhaartay oo hadda ay mahadnaqdaan anna waan kordhin mahadnaqina inaad waxaaga qasnadaysato qasnada ku ridato oo alxamdulillaah idii wardigun badisamahay waa inaad shukri amaliya اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور شكر عملي القرآن كنت الماما يا وحي وحلقة بحيه وأما بنعمة ربك فحدث نعمة إلهي وكسية حص وكورا وقولي فعل بكحص فإذا إنك الصدقات يرهدك ونكسنة كل هذا هاي قفك بحين يوحى كمذا علاج للقلب من حب الدنيا الدنيا تعايلك آتك أبضا فوشح قلبك كل عاه عذردي سكمذا صدقات إلهي كجد وياه نبي محمد نوح الحسي عليه الصلاة والسلام ومدنا آخر السمان كوحياها بابين يا عدوات كان يا والله وارم وحب الدنيا وكراهية الموت آخر النعيب الدنيا تعيل لبدا ساكو بيرا ياكو بدنا يو مركاسي فرال يسو النبي وسيغيان كل كاسي وحوذا كو أضيغيان كل كاسي بابايان
qofka muuminkii wuxuu ogaanayaa adduunyadu biyadi ljamiic ana hada almaal biyadi ljamiic dadka gacantooda inuu ku jiro qofka gacantiisa uu ku jira un inaanu ahayn ka mudan ee wanaagsan laakiin gaal iyo islaamba inay gacantiisa geli karto marka uma arkayo haynta uu waxayo inuu dadka ka mudan yahay ilaahay baa yidhi kulla numiddu haaulaa'i wa haaulaa'i min cataa'i rabbik wamaa kaana cataa'u rabbika maxduura gaal iyo islaamba waan siiyey baa ilaahay uli ee deeqdayda cidna umaan diidine dee qofku ilaahay diin siiyana wuu jecel yahay kuu duunyo siiyana macnaheedu maaha inuu jecel yahay gaal iyo islaamba uu siiyaa الصدقة مجلبة للمحبة فإذا كذي رات كذا واحد كم إذا الصدقة قفك بحين أي كل هذا هذا كاكو يا لتنا مجتمعين بكل هذا هاي قفك وحبحية ولا تشعل على جبلت الأنفس بحب من أحسن إليها قفك هذه يتروح ويسكتش عليه عدة وحسيسة وأمانة وتاجرية تاسنواتين الدونين waxaynu doonaynaa inay bulshadu is wada jeclaato oo ay isu wada hiiliyaan oo ay isku wada fikiraan oo ay walaaloobaan marka intii dadku ku nici lahaa wax iska bixi sadaqadu waa tadhiirun lilmu'ti wa limaali ilaahay baa ku nadiifiya qofka bixinayo dambiga kaga dhaafa oo maalkiisu ku barakeeya khudh min amwaalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum ud'u baalay ku salli nabi maxamed oo kuwa wax bixinaya sida adigaba lagugu saliyeeyo ku salli isaguna uu ku saliyay rasuulku kii wax bixiyay allahumma salli ala ali abi awfa reer abi awfa wixii dhiibay ilaahay uu ku saliyay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam de salligii nabiga lagu helay sadaqadii wax weyn weey qofkii bixinayay garanay kii isaguna qaadanayay ama gacanta ha soo fidiyo ama ha loo gartaba dadka qalana garaacashay leedahay qalana garash qof uu isqiyaasa wixii ka go'ay dadka u baahan buu la raadsadaa qofna marka la garaaca un buu keenaa labada mid kastaba ha ka yimaadee qofka la siinaya aakhirka qaadanaya isna raad bay ku leedahay sadaqadii qiimo badan oo xigmad ah oo faa'iido ah oo islaamku u jiray wa as-sadaqatu tahrirun li aakhidha min al-faqr wal-haaja qofka qaadanaya de baahidii iyo duruuftii iyo gaajadii iyo faqriga ka reebaysa oo qofku dadka caadiga ah buu ka mid noqonaya ilaahayna wuxuu faray waxaan aynu haynaa inuu dadka ku wada wareego oo qolana kaligood aanay haynin inta kalena aanay qatanaanin iyagana wax ka gaaraan kay la yakuna dulatan bayna al-aghniyaa minkum malka waxaan idin siiyay baa ilaahay wuri ama idhisaa u qaybiya si aanu dabaqad qura ugu eegaanin inta kalena wax uga gaaraan haba la kala badsado Allah subhanahu wa ta'ala markuu manna sheeganaya awliyadiisa wuxuu yiri fa'awaakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun ilaahay wuu idin soo dhaweeyo gargaarkiisii buu idin siiyo arsaaqadiisiina ya wixii wanaagsanaana wuu idin siiyo si ugu mahadnaqdaan marka waxa la yiraahdo duruuftu waa dib weey rasuulku sallallahu alayhi wasallam ilaahay faqriga iyo gaalnimadu ka wada ayuu mar qura ka wada magan galay allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr gaalnimada iyo baahida qofka iimaankiisu uu yar yahay gobonimada ka lumisaa diinta ka lumisaa faqriga qof iimaan weyn leh baa faqriga xejisan karo oo iimaanka ku ilaashan kare dadka hadii iimaankoodu daciif yahay faqriga duruufina ay ku dhacdo gobonnimadii iyo diintiyo way ka lumayaan laga yaabo qaarkood inay gaaloobaanba nabiga ducadiisa waxa ay alayhi salaatu wasalaam allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ilaaha waxaan ku weydiistay inaad hanuuniso alla ka cabsina waa ku weydiistay iyo waxaan ku kaaftoomo inaad isiiso adoona iyo qaninimo xadiidkaas oo muslim uu wariyay min xadiisi abdullah ibn mas'ud marka musiibooyinku kamid yahay faqriga kaasa bulshadii wax laga fududeynaya miyiga magaalada mid dhow iyo mid ka durugsanba faa'iidooyinka kullada qofka qaadanaya waxa kamid ah tadhirun min al-akhidhi al-hasad wal-baghdha tudahhir qofkii qaadanayay waxa ay ka reebaysaa sadaqadu xaasidnimadii iyo caradii iyo ciilkii uu qaadi lahaa qofka aan waxba siinin ee ka haysta wixiisa marka hadii baahidina uu ka hadhay cuqdadiina way ka hadhaysaa qalbigiisii baa wanaagsanaanaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam saa hore inuu soo sheegnay waxa uu ka digay dabba ilaykum daa'ul umam min qablikum al-hasad wal-baghdha cudurka ummadaha hore iska ilaaliya حسدك يا علاده dadka dhexdooda iyo carada iyo ciilka isu qaba
qofka hala yaabina ha odhanin isagu miyuu shaqaystay anaa shaqaystee miyuu ila dhaxlay mashuraakaanu ahay muxuu iigu dudaya muxuu iigu haystaa dabeecadda insaankaa waxay tahay nooc damci inuu iskaga jiro siiba markuu baahan yahay siiba markaad ehelkiisa tahay siiba markaad ummaddiisa ka mid tahay ama jaarkiisa waxbuu kaa sugayaa markaa hala yaabina wuu kuu cadhoon doonaa waanu ku xaasidayaa dhibna inuu ka yimaado waa laga yaabaa rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam iimaanka inay ka mid tahay buu xusay waxaad haysatay inaad walaalaha wax ka siiso laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi iimaankay ka mid tahay waxaad jeceshahay maalka inaad walaalkaana la jeclaato wuxuun ka siiso qofku iijaabi buu noqonayaa salbi halkuu ka ahaa iijaabi buu noqonayaa macnaheedu halkuu wax ku yeeli lahaa waxtar buu noqonayaa maalkii isaga ahaa ee aada wax ka siisay dadka walaalaha ama bulshada baahan waa uu ducaynayaa waanu difaacayaa waanu ilaalinayaa waxaa laga yaabaa inaad yeelato dad badan oo xuraas ahoo ilaaliya xoolahaaga maadaama aad wax ka bixinayso waxay leeyihin ka sakadiisana waa layna siinayaa sadaqadiisana waa layna siinayaa inagama dheera uu inoo tirsan yahay ilaaliya u duceeya waxaasina waa waxaynu doonayno waxaa la bixinayaa waa inu xalaal yahay hadduu xaaraan noqdo kuuma tirsanaa markaa inuu xalaal noqdo ku dadaal waxaad bixinaysa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi man tasadaqa bicidli tamratin min kasbin طayibin walaa yaqbalu allahu ila طayib faina allaha tacaala yataqabaluha biyamiinihi uma yurabbiha lisaaxibiha kama yurabbi axadukum falawah calaa macna alxadiid qofku hadduu midigtiisa ku bixiyo sadaqo ayiba oo xalaala qeyd lifaaqaasaa la socda ilaahayna ma aqbalo waxaan xalaal ahayn ilaahay midigtuu kaga guddoomayaa buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam midigtuu kaga guddoomayaa dabeetana wuu barbaarinayaa siduu qofku neefkiisa yar u koriyo ayuu ilaahay ugu korinayaa wax weyn buu uga dhigayaa maalinta qiyaama ama gaadiid u noqdo oo uu fuulo ama uu ku farxo qofkii wax la siiyo waxa laga maarmaana inuu isaguna mahadnaqo ashukru can ilmacruuf wixii samaaha ee laguu sameeyey waa inaad ku mahadnaqdo hadday faraltii hadday sunno tahayba ilaahay baa wuxu uhi markaad dadka sakada ka qaado u ducee nebi maxamedow maalkii jamiicee ummadda markuu soo ururinaya adiguna markaad qaniga ka qaadayso ma wakiil ahaa ama kii mustaxiq ahaa noqo waa inaad ducayso mar haddii nabigaba la yidhi kolkaad qaadaysa ducee qofka qaadanayaana waa inuu duceeyo macruufkaana uu ka mahadnaqo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay qofka macruuf idiin sameeya man ataa ilaykum macruufan fakaafiyuuhu fain lam tajiduu fadcuu lahu xataa taclamuu anakum qad kaafa'tumuuh calaa macna alxadiid qofka wanaag idiin sameeya ila wanaag baa lagu sameeyo sadaqaa lagu siiyo faqri baa lagaa reebay iyo duruufe qofkaa u duceeya abaalmariya buu horta rasuulku yihi marka wax lagu siiya adiguna abaalmari haddii aanad markaa samaynina ducee ducaduun ku daldal buu nebigu ilaa aada u malay ilaa aad ku qanacdo inaad ka abaalmariso oo duca aad ku abaalmariso sida loo ducaynayana isaga xadiid kale inoogu sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ihi qofka macruuf loo sameeyo faqaala liakhiihi jazaaka allahu khayran faqad ablaqa fi hanaa ay fi ducaa haddii walaalkii uu wanaag u sameeyo oo idhaahdo jazaaka allahu khayran jazaaka allahu khayran faqad ablaqa fi hanaa ducadii wuu ku xeel dheeraaday ammaantaasi waa ducadii marka inaad ducaad u fara badan akhrido waxaa ka muhiimsan inaad ta ma'huurkee nebiga ka soo aroortay ee taa aynu akhrina ay ka mid inaad tidhaahdo jazaaka allahu khayran ilaahay khayra kugu abaalmariyo adduunna way noqonaysaa aakhirana way noqonaysaa khayrkaasina waa wax caam ah marka waa duca shaamila oo macno weyn xambaarsan marka qofkaasina doorkaasuu leeyahay wax bixinaya kii kale wax qaadanayna doorkaasuu leeyahay raadka aynu u baahannahay iyo midhaha fiicanna sadaqadu way leedahay adduun iyo aakhiro midnabana ku qadi mayse nebiguna wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam waxbixintu haddii ay badnaanta maalka wax u dhimayso aad arkaysa inuu wax ka dhinmay tiradiisi xagga tayadiisaa kordhaysa maa naqasat sadaqatun min maal wax la bixiyey xoolihii laga bixiyey waxba kama dhimaan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam muuqaal ahaan haba dhinmo laakiin macnawi ahaan buu korayoo wixiibaa ilaahay uu kuu suuq gelinayaa sarartiisaa badanaysa shayguna had iyo jeer marka sarar iyo suuqba uu yeesho qiimo badan buu sameeyaa marka taasaynu dhiirigelinaynaa ayaamahan farxadda ayaamahan waajibka ayaamahan sunnaha ee khayrka aynu soo gebagabaynayno
si mahaddii ilaahay aynu mahadnaqaynay dhan walba ay u badato waxaynu culayska saaraynaa ka farxinta iyo waajib iyo sunnaba inaynu xaraga u bixino cibaadadana soo gabagabayno اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء